maalin wanaagsan walaalayaal waa barnaamijkeeni kibis maalin ugu filan oo idinkaga imaanayo codka abuur cusub waxaan barnaamijkan idiin daadahayn doona aniga oo ah Nuur Xasan iyo xaaskayga Hob Abukar hayo Hob Abukar soo dhaw mahadsan tahay waa idin salaameynaa dhammaan dhageystayaasha ina dhageysanaya meel walba joogtaan waxaan idin leenahay soo dhawaada oo nala qaybsada kibis ruuxi ah hayo Hob intaana bilaabin barnaamijka aanan u gelin kibis maalin ugu filan maxaa laga wadaa horta kibis maalin ugu filan waxa waaye barnaamijkan aan ugu magac darnay inay noqoto cunno ruuxi ah bini aadanku wuxuu u baahan yahay cunno uu ku noolaado jir ahaan maalin walba aan cunaa subaxii duhurkii habeenkii sidaas oo kale ruuxdeena ama nafteena waxay u baahan tahay waxay ku noolaato waxay ku noolaan kartana waa ereyga ilaah waxa qoran dadku kuma noolaado kibis kaliya oo tanjirka kaliya laakiin wuxuu ku noolaadaa erey walba oo afka ilaah ka soo baxa so barnaamijka waxa ugu talagalnay inuu noqdo cunno ruuxi ah qoodin maanta marka maxaan noo haysaa maanta oo nala qaybsanaysaa maanta waxaan jeclaysanay inaan idinla qaybsano dhageystayaasha ina dhageysanaya Bible-ka ama kitaabka quduuska aayad ku jirta oo aan ka heli karno Colossae kitaabka Colossae cutubkiisa koobaad aayadda 15 waana aqrinaa marka hore walaalayaal dhegeystayaal aayadda kitaabka Colossae cutubka koobaad aayadda 15 waxay leedahay isagu waa suuraddii Ilaahay aan la arki karin oo ah curadka uunka oo dhan amiin aayaddan waxaan usoo qaadanay horta kitaabka quduuska ama sida u taqaanaan injiilka iyo tawreedka iyo zabuurka oo isku jiro waaye waxaana center u ah ama dhaxtaal u ah waa masiixa wax walba uu ka sheekeynayo masiixa sidaasaan usoo qaadanay inaan horta aan idinla qaybsano masiixu waa kuma marka wuxuu leeyahay isagu waa suuraddii ilaah aan la arki karin oo ah curadka oo dhan marka masiixa wuxuu inoogu sheegay waxa uu yahay ayuu inoo sheegayaa isagu markay leedahay aayadda waxay ka hadlaysaa masiixa ka hadlay isagu waa masiixa marka isagu waa suuraddii ilaah aan la arki karin marka ilaah waa ruux ayaa ku qoran ereyga ilaah marka ruuxda qaab male oo lagu arko ama wax aan annaga ku arki karno indheheena aan naqaano aan garan karno aan ku arki karno ama qaab aan sideenoo kale ma laha aan ku garan karno so ilaahay marka wuxuu isugu keen muujiyey masiixa suuraddaas ama aragtidaas oo ilaahay isku muujiyey oo ah masiixa oo jirkeenoo kale bini aadam waxaa qoran xataa aayadda waxaa ku qoran kitaabka quduuska ereyguna wuxuu soo qaatay jir wuuna dhex joogay so waxa waaye masiixsa u ogtihiin oo ah ereyga ilaah wuxuu soo huwaday ayaa qoran jir wuuna dhex joogay oo aayad kale sheegayso magaciisa loo bixin doono Emmanuel macnaheedu ay tahay ilaahda nala jooga marka tan waxay ina tusaysaa suuradda ilaah aan la arki karin ayuu masiixa ahaa waxay wadaa aayadda waxay leedahay oo ah curadka uunka oo dhan curadka uunka oo dhan waa bilowga curad macnaheedu waxay tahay bilow waxa bilowga marka aayado badan ayaa inoo sheegaya asagoo ah bilowga wax walbo waa haddaan sii aqrina xataa waa sii arkaynaa aayadaha waayo wax kastaba isagaa uumay ayaa qoran isla kitaabkan aayaddan ka sheekeynaysa waxyaalaha samooyinka ku jira iyo waxyaalaha dhulka joogaba waxyaalaha la arki karo iyo waxyaalaha aan la arki karinba
hadday yihiin carshiyo ama sayidnimo ama madax ama amaro wax walba isagaa uumay oo loo uumay amiin waaw amiin ilaah maanta iskale walaalayaal sida aayadahan iyo kitaabka guud ahaanba sida hoob inoo sheegtay kitaabka guud ahaan waxaa udubdhaxaad u ah masiixa ayuuna kitaabka inta badan ka hadlaa hadda barnaamijkan aan ugu magac darnay kibis maalin ugu filan oo kale masiixa mar kalean ka hadli doonaa dabcan masiixa wuxuu dhahay anigaaba ee kibisti ya sax marka waxa aan ka hadlayna marka waxaa waaye in kitaabka quduuska aayadaha uu ka hadlayo oo dhan ay tahay kibisti aan ku noolaan lahayn inuu ilaahay asaga inuu yahayba kibisti aan ku noolaan ilaahay ereygiisa inuu yahay kibisti aan ku noolaan lahayn marka barnaamijkan sidaa hore idinkugu sheegnay waan wada qaybsanaynaa waxaan wada qaybsanaynaa ilaahay hadalkiisana waa baahi annaga u qabno oo sida jirkeenna raashinka caadiga ugu baahan yahay si ka badan ayuu ruuxdeenna waxay ugu baahan tahay inaan maalin walba ku noolaano ilaahay hadalkiisa haye noo wata ka dhexgala raali noqon waa mahadsantahay nuuro waxaan rabnaa aayad kale inaan ku dirno oo taas la mid ah ilaan kitaabka quduuska iska milaya oo aayadaha way isfasirayaan haddaan noo akhriso cibraaniyadda cutubkeeda koowaad aayadda koowaad aayadda saddexaad maasantahay kitaabka cibraaniyadda cutubka koowaad aayadda saddexaad waxay leedahay isagu waa dhalaalka ammaantiisa iyo u ekaanta ahaantiisa oo wax walba wuxuu ku hayaa ereyga xooggiisa amiin wax aad aayaddan iiga soo jiidaa waxay tahay u ekaanta ahaantiisa tii oo kale hadda aan soo marnay colossae oo kale tan in waxaa moodaa inay isleeyihiin haa oo isagu waa dhalaalka ammaantiisa iyo u ekaanta ahaantiisa tii hore waxay leedahay suuradda ilaaha la arka tan waa u ekaanta ahaantiisa marka ilaahay sida uu yahay ahaantiisa waa masiixa ilaa midda hore waxayna tiri waa ilaahay aan la arki karin suuraddiisa suuraddiisii tan waxay leedahay waa ekaanta ahaantiisa si aan ku garanno ereygiisa isugu keen muujiye dabcan haye waa u ekaanta ahaantiisa ama sida uu asaga u egyahay waay ma aha wax uu na tusaayo laakiin asagiyaaba wuxuu yahay u ekaanta ahaantiisa siduu ilaahay yahay ayuu masiixa asaga noo muujiye uu yahay isugu keen muujiye ilaahay marka dhalaalka ammaantiisa yani dhalaal waa wada naqaanaa wax dhalaalayo oo la arkaayo oo nuurayo oo ifayo waaye ammaanta ilaah masiix marka wuxuu ahaa ammaantii ilaah dhalaalka ammaanta ilaah oo wax walba uu samaynayay waxay ahayd wixii ilaah uu samaynayay oo aayadda weynaha qaybta kale waxay leedahay oo wax walba wuxuu ku hayaa ereyga xooggiisa ilaahay macnaha waxaa ku qoran isla kitaabka injiilka iyo waxaana waxaa ku qoran wax walba waxa laga sameeya isaga xaggiisa isla tanna waxay leedahay wax walba wuxuu ku hayaa ereyga xooggiisa ilaahay wax walba uu abuuray wuxuu ka abuuray ereygiisa dabcan sidaan wada ognahay oo kitaabka quduuska noo sheegay wax walba marka wuxuu ku hayaa ereyga xooggiisa ilaahay ereygiisa wuxuu leeyahay xoog sida masiixa oo markii dunida ekaantiisa markuu isugu keensoo muujiyey uu u muujiyey awoodda ilaahay masiixa markii yuhuudda oo kale ay arkeen waxay dhaheen ninkan uma hadlayo sidii nebiyadii oo kale uma hadlayo dheh ninkan wuxuu ku hadlaya awood marka awooddiisuu muujiyey ilaahay awoodda ilaahay u ekaantiisa ayuu isugu keen muujiyey marka dad badanaa waxay isweydiiyaan masiixa ilaahnimo ma sheegan masiixa bibalka uu ka hadlaya ilaahnimadiisa oo isaga waa ilaaha aan la arkaynin suuraddiisa waa u ekaanta ahaanshaha ilaah u ekaantiisa asaga ah sidaa labada aayadood kusoo aragnay waana la weydiiyey oo waxaa weydiiyey haddaan fiirino bibalka buugga yuxana 4 هي من أخريها أنت أخريها أنت كبلها نو أخري آيات السديدات نو قبلها آيات السديدات كتابك يوحنا إنجيلك يوحنا عتب كتبني أفراد آيات السديدات
ilaa sagaalada noo akrinaya aayadaha kaloo ka horeeya dabcan waxay noo sheegayaan waxyaaba ay xerta iyo masiixa ku wada hadleen adaa kolley noo sii faahfaahin doono aayad sideed waxay leedahay Filibos oo ka mid ahaa xerta masiixa Filibos nin xerta ka mid ahaa 12 uu masiixa u doortay inay injiilka soo gaarsiiyaan ama fariinta quduuska dadka ay gaarsiiyaan ayuu ka mid ahaa wuxuu leeyahay Filibos baa wuxuu ku yiri sayidow aabahana tus waana nagu filan yahay markaas Yeshuuca wuxuu ku yiri ma intaas badan baan idinla joogay oo aanad i garanayn Filibisow kii arkay wuxuu arkay aabaha sidee baad u leedahay aabahana tus amen Filibos sababtu u yiri waxaas hadalkaas su'aasha u weydiiyay horta haddaan ka bilowno aayadda 7 waxay leedahay haddaad masiixa wuxuu leeyahay haddaad i garateen aabahayna waad garan lahaydeen hadda kadibna waad garanaysaan waadna aragteen aabaha ilaahay marka haddaad aniga oo masiixa i garataan aabahayna waad garan lahaydeen يعني uma baanidin wax kale waay hadda kadibna waad garanaysaan waadna aragteen marka bal fiiri wuxuu ka hadlayo waa aaba hadda kadib uu yiri waad garanaysaan waadna aragteen so iyaga aabihii may arkayaan mise masiixay arkayaan masiixay jir ahaan u arkayeen yay garanayeen asagay garanayeen markaas wuxuu ka yiri hadda kadib waad garateen aabihii waadna arkaysaan yaa arkaysaan masiixa arkaysaan isla ilaahayna waa ujeediyay isig aabihii waay markaas Filibos wuu ku wareeray so hadda kadib waa garanaysaan waadna aragteen markaas wuxuu ku yiri Filibos baa ku yiri markaas sayidow aabahana tus waa nagu filan yahay anaga aan dhihin adiga hadda aniga i garateen aabaa waa garateen aabaha muf ilaahay haddaan tusti asaa nagu filan markaas Ciise wuxuu ku yiri ma intaas badan baan idinla joogay oo aanad i garanayn Filibos marka bal fiiri asaga wuxuu weydiinayaa aabihii masiixa wuxuu ku leeyahay haddaad aniga i garateen aabaha waa garateen waana aragteen يعني أنا أركيسان وإيمجك إلى وصورة إلى واسموجينيسا دلالك أمانتي سواي وإكانت أهانتي سواي مركو حلية هاي أنا وقرنيسان ودنا أركتين مركو فيليبوس حلية هاي آباها نتوس مسيحة مركو كدب آيات سكالة حلية هاي وسيوي دينا فيليبوس ومركو حلية هاي ما إنتاس بدن بقى إذا رجعوا أني قرني فيليبوس وكي أركي وحو أركي آباها sidee baa u leedahay aabbaha natus isla su'aal ku celiya su'aashi waxa loo weydiinaa sidee ii leedahay aniga waa anoo ku weydiiyo ku dhahay nuur natus nuur iiga waran ama nuur waake markaas waxa ii leedahay hay aniga haba nuur nuur hadda aniga ha leedahay sidee ii dhahay nuur itus waaba hadda waa garanaysaa waa aragtay marka haddaan ku dhihi lahaa حسن إتوس أنا محمد إيشة يوهي وإيشة قلت وواحد قلت محمد واسداس حسن واسداس وإيش شيء كان له مركب مسيح أصابه يا أبي حجر إنتاس بين لجوجي فيلبو ميكرني سنيا سؤال الوعلي مركب وحواي مسيح وصورة إله أنا أركي إنتاس أمانتي casharkeena maanta intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa walaalayaal aad iyo aad ugu mahadsantihiin waqtigiina qaaliga ah oo na siiseen barnaamijkeena waxaan rabnaa waa barnaamij aan isla wadaagayno barnaamijkeena idinka ayaan marka wixii ra'yigiina waan soo dhaweynaynaa waayo barnaamijkan idinkaa iska leh haddaad barnaamijka inaan wax ka bedelno ama wax kusoo darno wixii su'aala ama wixii ra'yi ah waan idin soo dhaweynaynaa walaalayaal haddana maantay intaas ayaan rabnaa aan kusoo ekeyno inta barnaamijka xigo aan kulmayno hoobaye maxaa kusoo gabagabaynaynaa dhinaca waxaan idin leenahay nabadda masiixa idinla jirto nabad geliyo